waa saxaabiga keliya ee magaciisa lagu xusay Quraanka. Sucdaa bintu Saclaba waxay doonaysay inay tolkeeda reer Bani Macaan soo booqato, waxaana waqtigaas socdaalka ku wehelinaya wiilkeeda Zayd bin Xaarith al-Kacbiyi. Xaaritha wuxuu sagootiyey xaaskiisa Sucdaa iyo wiilkiisii yaraa ee Zayd. Waxa uu si fiican ugu hubsaday awrkii ay saarnaayeen, gacmaha ayuu kor ugu qaaday isagoo sagootinaya. Mararka qaarkood kalgacaylka iyo jacaylka weyn ee uu u qabay xaaskiisa iyo wiilkiisa Zayd ayaa qaadayay oo wuxuu is arkayay isagoo daba socda awrkii ay saarnaayeen. Laakiin gadaal dambe ayuu dib u soo xasuustay inuusan safarka ku wehelinaynin. Sidaa darteed ayuu dib ugu soo noqday guriga. Sucdaa iyo wiilkeedii waxay socdaanba markii ay soo gaareen daarihii ay degnaayeen tolkeedii ayaa waxaa iyadii iyo dadkii la socdayba hal mar soo weeraray fardooleydii reer Bani Khayn. Dabadeedna waxay biliqaysteen dhammaan hantidii ay wateen. Ratigii ay wateenna way kaxaysteen, sidoo kale wiilashiina way qafaasheen. Haddaba wiilashii la qafaashay ayaa waxaa ka mid ahaa saxaabiga jaliilka ah ee aynu ka sheekeynayno, waa Zayd bin Xaaritha. Waqtigaas iyada ah Zayd bin Xaarith da'diisu waxay ahayd qiyaastii 8 jir. Zayd bin Xaarith iyo wiilashii kale ee la qafaashay waxaa la keenay suuqii weynaa ee la oran jiray Cukaada, iyagoo la doonayo in dadka loo bandhigo inay iibsadaan carruurtaas la soo qafaashay. Waxaa Zayd bin Xaarith gatay nin hantiile ah kana mid ah madaxdii Quraysh. Ninkaas magaciisa waxaa la yiraahdaa Xakiim bin Xazaam bin Khuwaylid, wuxuuna ku gatay Zayd lacag gaaraysa 400 dirham. Ma ahayn Zayd oo keliya ee wuxuu kaloo suuqa ka soo iibsaday wiilal kale oo fara badan. Markii uu Xakiim bin Xazaam yimid magaalada Makka, waxaa warkiisii maqashay Khadiija bintu Khuwaylid oo eedo ugu toosneyd Xakiim. Way soo booqatay iyadoo salaamaysa soona dhaweynaysa. Wuxuuna Xakiim ku yiri eedadiisa, "Eedo, waxaan suuqa Cukaada ka soo gatay wiilal. Kaad doontid wiilashaas ka dooro, waan kuu hibeynayaa." Khadiija bintu Khuwaylid ayaa si fiican u eegtay wiilashii, dabadeedna waxay ka dooratay Zayd bin Xaarith radiyallahu canhu. Kadib markay ku aragtay inuu leeyahay astaamaha wanaagsan sida xilkasnimo iyo caqli qoto dheer oo ay ku tuhumaysay, Zayd bin Xaarith wuxuu soo raacay Khadiija bintu Khuwaylid. Maba ka soo wareegin waqtigaas wax yar jeer uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam guursaday Khadiija. Wiilkii nasiibka badnaa waxa uu soo wareegay xanaaneyntii iyo la diris naqashadiisa suubanaa sallallahu calayhi wasallam, isagoo nasiib u yeeshay inuu ka agdhowaado intii uu Alle uumay kii ugu sharafta badnaa, si uu markaasi uga shidaal qaato hanuunka iyo akhlaaqda suuban ee uu ku sifaysnaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Hooyadii Zayd bin Xaarith laba indhood ismay keenin laga soo bilaabo markii la qafaashay wiilkeeda. Dhinaca kale Zayd aabihiisa isna dhinaciisa ayuu dadaal kaga jiray. Xili ay dadka u soo cibaado tagaan Kacbada ayaa qaar ka mid ah Zayd tolkiisa yimaadeen guriga barakaysan ee Kacbada. Iyagoo ku dawaafaya Kacbada ayaa waxay si foolka foola u arkeen Zayd. Durbadiiba way garteen, way wareysteen, isna wuu wareystay. Markii ay guteen cibaadadoodii waxay ku laabteen magaalooyinkoodii. Waxayna Xaaritha oo ahaa Zayd aabihiis u sheegeen inay indhaha soo saareen oo ay la kulmeen Zayd markii ay joogeen Makka. Xaaritha wuxuu durbadiiba diyaarsaday awrkiisa, wixii hanti ahayd ee uu qaadan karayna hore ayuu u soo qaatay si uu wiilkiisa ugu soo furto. Sidoo kale waxaa safarka u sii raacay walaalkiis Kacab. Way ambabaxeen waxayna u kactimeen jihada magaalada Makka. Markay yimaadeen magaaladii waxay u soo galeen Maxamed bin Cabdillaahi oo ah rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo waqtigaas lagu soo dejin waxyiga. Waxaan kuugu nimid inaad sii dayso wiilkeena kula jooga, waxaana soo qaadanay wixii hanti ah ee aan ku furan karnay wiilkeenna. Nagu galadayso wiilka aan ku furano waxaad doontid oo hanti ah. Wuxuu yiri, "Waxaan dooransiinayaa inuu ila joogo ama inuu idin raaco." Zayd ayaa isagoon jawaabta la dib dhicin ku yiri markiiba, "Maya, waxaan doonayaa inaan adiga kula joogo." Aabihii ayaa wiilkii Zayd ku yiri, "Wiilkaygiyow, ma aabbaha iyo hooyada ayaad ka dooranaysaa adoonsiga lagu adoonsanayo?" Zayd ayaa misana mar kale ku yiri aabihiisa, "Ninkan anigu uunbaa og waxaan ku arkay.
mana doonayo inaan weligay ka tago. Intaa kadib, Zayd waa uu weynaaday markan, waxa uu nala joogay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam muddo dheer. Waxa uu la galay dagaallo badan, ugu dambeyntiina waxa uu ku shahiiday dagaalkii Mu'ta, isagoo muujiyay geesinimo aad u weyn. Ilaahay ha ka raali noqdo Zayd bin Xaarith iyo dhammaan intii u soo hurtay naftooda fidinta diinta Islaamka.